السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال سو دوادا دمانتين ولي waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii ahaa duubista maadada xisaabta fasalka 12aad wali waxaan ku guda jirnaa chapterkii koowaad waxaan still ku sii guda jirnaa casharkiisii labaad aan ku guda jirnaa waliba example-kii ugu dambeeyay ayaan isla soo gaarnay example 4 ah wuxuu ku yaalaa page 12 buugaaga dugsiga sare ama dugsiga galaaska 12aad ee xisaabta. Example 4 wuxuu u dhacaa sida tan verify waxaad cadeysaa the following equation isla soo socota is an identity inay tahay midaal cadey. Midaal markaan leenahay macnaheedu waxay tahay labada dhinac ee equation-ka inay isla eg yihiin in kale ayaan cadeyn doonaa biidhnillah. Isla egtana sideeda marka la cadeynayo inta badan kuma xirna qaacidooyin oo waxa loo fududeynayaa hadba qofka sida base-kiisa u xiran yahay u dhisan yahay ku xiran tahay. Marka aan bilowno insha Allah mid way iska sahlan tahay. Waxaan la siiyay sin pi over 6 plus theta oo lagu daray cos pi over 3 plus theta waxay la mid tahay cos theta. Marka equation sidiisa marka laga shaqeynayo waxa la qaataa inta badan dhinaca bidixda ah kaasaan furfuri doonaa oo waxaan la ekeysiin doonaa dhanka midig ayaan la ekeysiin doonaa. Marka intaan soo qaadan doonaa oo furfureynaa inta inay la eg tahay in kale ayaan xaqiijin doonaa insha Allah. Marka qaybtan hore sin a plus b oo eg tahay qaybtan dambana cos a plus b oo eg tahay qaabkaas aan u furfuri doonaa kadib waan isku dari doonaa mid kasta oo qiimo lahana qiimaheeda ku bedelanayna. Waxaan leenahay marka hore sin a plus b aan hadda u furfurno waxay noqonaysaa sin boska a waxa galaysa pi over 6 oo ku dhacsan cos boska b waxa galaysa theta. Kadib waxaan leenahay plus cos noo soo qaad boska a waxa gali doonta pi over 6 sin noo soo dheh boska b waxa gali doonta theta. qaybtan hore saasan ku furfurnay kadib qaybtan dambe ayaan furfuri doonaa oo waxaan u furfureynaa cos a plus b ahaan oo waxaan leenahay cos boska a waxa galaysa pi over 3 kadib waxaan leenahay cos boska b waxaan gelinaynaa theta dan calaamadan pluska waxay isku bedelaysaa minus waxaan leenahay sin boska a waa pi over 3 sidoo kale waxaan leenahay sin boska b waa theta. midaaladan ama functionskan isku dhacsan waxaan sameynaynaa mid kasta qiimo la qiimihiisa ku bedelayna. Tusaale ahaan inta waxaan u yaala sin pi over 6 waxay u dhigantaa sin 30 qiimaheedu wuxuu ahaa half u ahaa noogu bedel ama 1 over 2 oo ku dhacsan cos theta. kadib plus aan leenahay halkan waxaa inuu yaala cos pi over 6 oo u dhiganto cos 30 qiimaheedu wuxuu ahaa radical 3 over 2 ayuu ahaa ku dhacsan aan leenahay sin theta. kadib waxaan leenahay plus cos pi over 3 waxay u dhigantaa cos 60 qiimaheeda saxda ahna waa half oo ku dhacsan aan leenahay cos theta minus noo soo qaad sin pi over 3 waxay u dhigantaa sin 60 qiimaheeduna waa radical 3 over 2 oo ku dhacsan aan leenahay sin theta. marka meeshaan joogno waxay isku darsamaan isku dareynaa waxay kala go'ayna waa kala goyn doonaa. tusaale ahaan halkan waxaa inuu yaalo plus radical 3 over 2 oo ku dhacsan sin theta dhankan waxaa yaalo radical minus radical 3 over 2 oo ku dhacsan sin theta. marka labada maadaama isla eg yihiin calaamadooda ay kala duwan yihiin way isla baxayaan oo waxay u dhigantaa 0. kadib waxaa isku darsami doono half oo cos theta ah iyo sidoo kale half oo cos theta ah oo waxaan leenahay half cos theta oo lagu daray half cos theta haddii marka half iyo half aan isku darno hal ayaa ka soo bixi doonta. therefore marka waxay noqonaysaa labada marka la isku daro oo la mideeyo waxaa ka soo bixi doonto cos theta ka soo bixi doonto. marka equation-keenii oo qornaa sin pi over 6 lagu daray theta oo ku sii darsan cos pi over 3 lagu daray theta waxay la mid tahay cos theta waan cadeynay oo dhinacan bidix markaan furfurnay waxaan ka soo saaranay cos theta. sidaa darteed waxaan leenahay marka this equation is an identity. waxaan leenahay this equation is an identity waa midaal ayaan leenahay. marka example-ka meesha ayuu noogu egyahay waxaa ka dambeeya exercise iyo activity isku day insha Allah ka shaqeey midka ka shaqeysa jawaabtiisana qaybta comment-ga ku soo qor waxay kugu soo adkaadana numberka WhatsApp-ka ah ee page-ka saaran ama YouTube-ka saaran igala soo xiriir insha Allah waa lagu xalin doonaa biidhnillah ilbaari. tan intayna casharka saddexaad ee chapter-ka aan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.